yeelan doonaa su'aalo ay dadka soo weydiin karaan mawaadiicdii ay horey u dhageysteen wixii istisaalaada waxaana noogu diyaara doctor Cumar Imaan haddii ilaahay yarxamo. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. waxaan jeclahay inaan ku dhamaystiro maantatan maadaama aan asaabiicdii hore wixii noogu dambeeyay aan ka hadalnay ahayd waxa la yiraahdo xeerka iyo sida anaga xeerkaan u isticmaalno oo ah islaamka in looga hor yimaado nusuustiisii dhan banaanka loo tuuro xeerkeena uu noogala weyn yahay dhibka uu leeyahay iyo wixii ka ratibmay iyo sida kali ah oo lagu maxaan yiraahdaa arrintaas lagu daaweyn karo hore baan uga soo hadalnay. marka waxaan jecelnahay inaan haddana raacino waxyaalaha maadaama anaga adiladii islaamka ahayd oo afarta ahayd aan diidnay waxyaalaha adilla aan u samaysanay waxaa kamid ah xeerkan iri waxaan ku daraynaa maanta qayb yar ilaa nisfi saacan wadayna kadibna asilada aan idin furayna waxa la yiraahdaa caadada la yiraahdo caadada xeerka way ka duwan tahay caado waxa la yiraahdaa maa jara calayhi curfu nnaas dadka curfigooda waxii uu ku socday ama caado ay ka yeeshteen baa la yiraahdaa. xeerka waxa weeyaan waa wax qoran ama wax la wada yaqaan oo la xifdiyo oo markay wax dhacaan la isugu yimaado. caadadana waxa weeyaan waa wax yar iyo weyn dumar iyo rag ay iska sameeyaan ay iska dhaxleen dadkoodii hore. haddii aad tiraa war waxa kan sharci islaamka waa ka hor imaansan yahay waa diidan yahay haddii aad tiraa waxa ku leeyahay waa sax weeyaan laakiin waa caadadeeni caado la khilaafana cara aan la leedahay baa lagu leeyahay. taas macnaheedu waxa weeyaan nusuusta islaamka oo dhan in meel laga tuuro oo caadadii la qaato sidaas bay noqonaysaa. marka amthilo yar baan kaaga sheegaa maadaama caadada ay badan tahay wax la koobi kara aysan ahayn yaan waxaan kaaga aan misaalahaan kaga dhigay qeybiyaal marka aad ogaatid sidan caadada annaga aan u horumarino nusuustana aan dib u dhigno taasaad ku ogaan kartaa. ayib marka caadada haddii wanaagsan tahay weligeed caado wanaagsan waxay ka timaadaa ummad dhaqan fiican leh ee islaamka ku dhaqanto waxaa ka dhalanaya markaas islaamkaas lagu dhaqanayo oo caadado wixii dhamo islaamka uu la yimid baa caado noqonaya. marka hadhow dadkii yaryaraa iyo jiilkii gadaalka imaanayo dhan waxay noqonayaan caadada islaamka waaya dadkoodii oo waaya aragga ama ka horeeyey ay ku dhaqmi jireen caado u noqonayso. marka caadadii iyo shareecadii bay iswaafaqayaan wax aada u qiimo badan weeyaan. waxaan misaal ahaan kaa siinayaa 20 sano ka hor waxa weeyaan gabadha inay xijaab qaadato ama dumarkii ma jiri jirin cid kastoo lagu dhalana idan waxay ku dayin jirtay hooyayaalkood. laakiin maanta haddeertaan lama dhahayo gabadhii yarayd markay dhalato waxa weeyaan ceeb bay la tahay dugsi inay aado iyadoon xijaabna gaarin yaa waxay doonaysaa inay xijaabka qaato leanna waxay arkaysaa hooyadeed baa xijaaban walaasheed baa xijaaban jidkii dadkii socday maxaan ku ihahdaa shaaricii dadkii dhan baa xijaaban. marka waxaad arkaysaa ummadii yaraanteedii inay gabadhii ay ku qaadanaysa xijaabkii. taas waxa weeyaan waa caado fiican oo dhaqan islaam ka timiday ummadana dhaqan u noqotay waxa weeyaan waa aad bay u qiimo badan tahay. haddaan nusuusta islaamka ku dhaqan lahayn sidaasay wada noqon lahayn. marka maadaama anigaan ugu talagalnay barnaamijkan hadihi sabiili inaan ku daaweyno waxyaalo badan oo dadka inay toosayin ay u arkaan ee sharciga islaamka ay khilaafsan yihiin oo jidkii lagu soo duway inaan kaaga hadlo aan ku ballan qaaday yaa waxaan xooga saaraya caadaadka islaamka ka hor imaanayo sayi ah oo dhib keensanay inaan kaaga hadlo. caadada ugu horreysa waxa weeyaan laba qayb u kala baxda. caado waa mid macsiya oo sharci islaamka ah khilaafsan qofkin uu ku dambaabay laakiin macsiya oo min almacaasi ah. midna waxa weeyaan mid caqiidada dhaawac u geysanaysa weeyaan. marka midda way kala daran yihiin oo wax allaale wixii caqiidada islaamka ah waafaqsan waa sax wixii diidan oo ka hor yimaadane shirki bay qayb ku yeeshanayaan ayagana. sidaa daraaddeed waxaa kamid ah fadli ilaahay subxaanahu watacaala uu ku siiyey inaad u nisbaysid makhluuq ilaahay uu abuurtay inaad tiraahdo fadliga asigaa isiiyey inaad tiraahdo waxay kamid tahay waanan sheegi doonaa caadad badan oo sidaas ayaa jire waxaan ilaahay adiga gooni kuu siiyey ama maal ama caafimaad ama caruur ama wanaag oo dhana waxaad leedahay fulaan ama nin heblow ama waqti heblow baa arrintaas sabab iigu ayaad leedahay. taas waxay tahay islaamkii oo meel looga dhaca. masalan nabiga calayhi salaatu wasalaam maalin kamid asigoo markii ghaswada xudaybiya la yidhaha uu joogay yaa roob uu da-ay. markaa roobkii dadkii markii subax arkeen baa nebigu wuxuu yidhi markuu salaadii intuu dukaday iyagu soo hor fadhiistay yaa wuxuu yidhi dadkii ma taqaaniin buu yidhi dad yahabow maadaa qaala rabbukum habeenka kan ilaahay wuxuu yidhi ma taqaanin. qaaluu waxay yidhahdeen allahu warasuuluhu aclam
qaala asbaxa min cibaadii mu'minun wa kaafirun saaki waxaa lagu waagbariistay mid gaal ah iyo mid muslim ah roobkaan da-ay awgeed oo nicmada timid fa amaa man qaala mutirnaa bifadli illahi waraxmatihi fadalika mu'minun bi wa kaafirun binujuum ninkii yidhaahdo annaga waa maanta roob baan helnay ilaahay baa gargaarna sii bifadlillahi waraxmatihi anigula siiyey fadalika mu'minun bi aniga ninkaas waa i rumaysan yahay buu ilaahay leeyahy xadiid qudsi waa wa amaa man qaala mutirnaa binawi kada wa kada kaafirun bi wa mu'minun bilkawaakib buu nabiga alayh salatu salaam ilaahay ka sheegay xadiidkaas qudsiga ninkii yidhaahdo xidig heblaay baa xalay soo baxay kaas daraaddeed baa roobkii watay asigaa xidigaasaa na waraabiyo roobna sii markii aad tiraahdo ilaahayna waad ku kufrisay waxaadna rumaysay xidigaasaad rumaysood waxaa weeyaan nafcigii iyo wanaagiiad isaga u tiirisay roob ilaahay uu keenay awaamir malaa'ig la siiyey addoomankaygaas iyo waraabi la yiriye oo roobkaa gey la yiri yaa waxaad leedahay xidig oo iska jaamid oo wuxuu yahay aanan jirin oo makhluuqaadka ilaahay kamid ahaad leedahay xidigaasaa na waraabi xali asaa soo baxay asiga hadduusan ahaan lahayn kuma uusan juri lahayn carabtii asaasay ahaan jirtay nebigi dadka aad bay oo ay markaa ay arrintaas ugu baraarugeen lianna waxyaalo dadka ay haysteen inay roobka haddii waxaa la helay in la helaya oo kale marka annaga marka aan fiirino caadaadkeedana u laabano oo kale way badan yihiin waxyaalaha la noocaas laakiin 2 nooc ama 3 nooc baan kaaga taabanay bal u fiirso waxaa la yidhahda caadada la yidhaha istunka oo kale ka soo qaado soomaalida waxay ka aaminsan tahay haddii aanan istunkaas ayna dhicin ama dadka caadadaas yeelinaanu soomaalida waxaa weeyaan waa qabaa'il qabiilo kastana caado bay leedahay mid la leeyahay midaabay ka fiican tahay ma jiraan mid kastaba caado bay leedahay dadka waxay leeyihiin istunkaas ninkaanan dadkii tumin haddaanan istunkaas dhicin abaar baa dhacayo haddii uu roob dhacana nafci laga heli maayo sidaas bay dad muslimnimo sheeganaya ay samaynayaan bal qaabdarrada ay shareecada islaamka ku leedahay islaamka ilaahay nabigiisa wuxuu yihi sibaabu lmuslimi fusuuq wa qitaaluhu kufr in nin muslim in la caayo waxa weeyaan waa faasiqnimo in lala dagaalana waaba gaalnimo weeyaan marka ninkii muslimka ahay in la yidhahdo maanta waa dagaalamayna aan isu soo baxno ee midiye iyo sakiiman xataa ulasha lasoo dhex gelinayo dhagaxyaalo iyo maxaan ku yidhahda sida qoladaa loo jibiyo markaa jeesh laiska hor yimaado oo midka isha laga bixiyey midka la dakray midka dhiiggiisa daadanayo aada yaabaysa ummaddii sidaa dhibkaas banaysatay waa macsi aada u weynin badan weeyaan waa macsi waxaa siyaa badan iyadoo macsi ah oo wax fool xun ay tahay dad muslimiin in laga dhex helana aysan ahayn in haddana aan u aragno macsidaas annaga aan samaynayno waxay jid u tahay raxmada ilaahay baan ku helayna wuxuu ilaahay reebay maa naha allahu canhu laa yakunu طariiqan liqurbati illahi tabaaraka watacala ma dhici karta laa yakunu طariiqan fii qurbi illahi tabaaraka watacala wax ilaahay uu reebay maa dhici karta in loogu dhawaado wax aada u foolxun weeyaan arrintaas ayada ah marka dembigaas waxaa qayb ka leh waxa weeyaan ummaddaas markii islaamka soo galeen waxyaalihii islaamka diidaya oo dhan baa loo dhaafay marka islaamka dhinacay ka wataan wixii islaamka burinayna dhinacay ka wataan taasna mas-uuliyadda waxa weeyaan ummadda meeshaa joogto oo qabaa'ilkaas madaxda u ah oo cuqaal oo culamo leh inay dadkaa kala hadlaan waxaas diinta islaamka ay khilaafsan tahay oo ilaahay wuxuu reebay aan loogu dhowaan karin roobna ayna keeni karin caqiidada ay dhaawac u geysanaysa taas waa in la ogaado ayib waxaa ka sii daran waxa weeyaan sidaas oo kale qola waxay leeyihiin wax badgal liidhahay qaba badkaas haddaanan la gelin waxa weeyaan sidaas oo kale ama dabaysha isma taagayso ama roobkii ma imaanayo ama barakadii bay ka tegaysaa ayadana waa nafsi shay waxa weeyaan roobkan ilaahay uu keeno nicmadiisa in adiga aada u tirisid xayawaan biyo la geliyo oo bakti lagu dilo in aad u tiirisid roob bay ku imaanaysaa nin muslim oo laa ilaaha ila allahu dhahay ma haboono dadka saa samaynana waa jad jaahiliina waxay xaq ku leeyihiin dadka walaalahooda ah oo ayaga la dhashay ama arrintaa wax ka og inay arrintaas ay ka hadlaan la yidhaahdo annagoo muslimiin ina ficilkaas samayna ma banaano markaan rabna inaan khayr raadsano maxaajid noo ah bal nusuusteenna hadda aan ku laaban waxaan u leeyahay sidaas waxa weeyaan annaga waxaan aaminsannahay waxaas bay dad ay aaminsan yihiin roob inuu ku imaanayo
إلهنا وحوليه وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا بل أفيرس إلهي وحوليه هديدتك توصنان لهايه على الطريقة جدك ربط هدي قاضا لهاين لأسقيناهم ماء غدقا بيبادن بان إلهي أنكو ورابلهم بوليه. طيب خير أهل الكتاب وحليل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض حدي أي توصنان لهايه بركة كرنا ونوكي لنا رهوبة hoosna waxaan ugu soo bixi lahayn daaq iyo barwaaqo iyo waxay cunaan baan ugu soo bixi lahayn sidaa daraadeed waxa weeyaan waxa kali ah oo khayrka lagu helo oo reebka lagu helo caafimaadka lagu helo caruurta lagu helo waxa weeyaan waa ilaahay jidkiisa lagu toosnaado marka kitaabka ilaahay inuu leeyahay war haddaad toosnaataan roob baan idin siinaya inuu ilaahay kitaabkiisana leeyahay annagana aan leenahay markaan istilnaan roob helayna sidaa muslim laguma noqon karaa waa inaan isweydiinaa qofka muslimka waxaa loo baahan yahay maalin baa waxaa dhici doonta lagu leeyahay iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyawma calayka xasiiba war kitaabkaada akhriso marka waxaa lagu leeyahay hadirtaan war kitaabkaas ha ku qorin waxaadan hadhowta ka jawaabi karin ha ku qorin baa lagu leeyahay oo waxaadan ka jawaabi karin hadhow waxaa lagu leeyahay miyay ahayn roobka markaad raadsanaysaan jidka lagu raadiyo sow ilaahay kitaabkiisa ladinkuma barin سو نبي محمد إذين ما عدين مرك الويل هذا ما يمديه كرتوحي ما يشبه كعديه مرك ترى أنت أنا جوان أجاي كسبان نقول تجي أو حان آذي أنا عادي أو يالك أن كت حليبان أنا عادي سيدا سان أنا رمي إلى أنت جواب ونقول ميسا مرك تعوى أنا هذا ديارته سيدا دراد الله وحول هذا فقلت استغفروا ربكم نبي الله نوح قوم كذا وحكيري وحان كيري استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا نبي الله نوح وأول الرسل وياه يا وحكيري إلهي وحان قومك يكيري والإلهي الذنب داف ويديستا حدي آد ويديستان يرسل السماء عليكم مدرارا سمدبوا إذنكو صادريا وسيدة رفتان أضراب وهشام با إلهي وبلن قاس نبي عليه الصلاة والسلام saxaabadii markuu rabo inuu wax uu tusiyo markii abaar timaado markii ay timaado macnaha roob la'aan ma uusan dhihi jirin caadaad maxaynu ahaan jirtay ma uusan dhihi jirin nabiga kaleey salaatu salaam wuxuu dhihi jiray maalin heblay baan banaanka u bixayna marka maalinkaas la isku soo baxo dadkii oo dhan hala soo bixiyo caruurtii hala soo bixiyo waayeelii hala soo bixiyo meeshaas baa laba ragca lagu dukanaya khudba lagu akhrinayaa ilaahay baa laga bariyaa haday dhici weyso roobka in la helo waa lagu celinaa hadana waa lagu celinaa ilaahayna waa ballan qaaday in dacwadaas sunnada nabiga kaleey salaatu salaam hadii aan qaadano inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala naga nasiinay marka waxaan u jeedaa caadooyinkaas aad u fool xun dad badan waxay u qabaan dadka sameeyna kali in dambigeed helayaan markay istu noqoto ama badgal ay noqoto ama wixii lamid ay noqoto nin kasta oo arintaas ka qayb galo ninkii soo abaabulo ninkii u daawasho tago ninkii faafaahiyo idaacooyinka buubuuniyo arintaas yiraahdo saas ay dhacday taasay tahay biriyay ay dhacaysa istunki biribay badbal kulli waa wada jira لأنه النبي عليه الصلاة والسلام وحو شيء ربا النكا عنا لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء ربا النكا عنا النكا عنسية النكا أقرأ النكا مرخاتك نقض كل وضوء كوالا مدبو النبي عليه الصلاة والسلام مركا هذه أمودي بابور بان أفقوي الراعة أنيقا وافير سنة استنكا سان فير سنة سيداس أنيقا الدنبكم مجل نضدك أسا أنيقا عنسك فير سنة مجرت وحويا حدي أي عادة حن أي تهي حدادا ريبي كريم كفقو حدادا ريبي كان رأي قاعد حكو درسانين وحلق حضر يتعسويا طيب تاسو حيتهي وح إلهي فضلي أو أمدسي أو عدك اللوتيري مركان استنا روب نو يمدي مركان بدن قلنا روب نو يمدي مركان ساسا مينا روب نو يمدي وحا فضلي إلهي وانقا نسيني أو أسيقا أو نغم النيس أن عدك اللوتيرين وحا تاس لمدة أو عادة حنة وحا لا وحي دبكو ودعو مكروه إن ترادت وحقيقه سبب إلهي غير كيس هدانا إدبي الضر والنفع حويا إلهي بأسكاله واتو النبي عليه الصلاة والسلام حديث يقول سيكسر هذه خلائق دوران إنسي إجن بنان سوي ماذا أو أي دوران إني أذيك أي كلبان لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك حتى يكون أنفع عنا سيدا سويا مركز سيدا درادت مبنانا هدي عنوغا كاد انت جراك وقود عدي حوريا كاب باباي ما تسليك سوقاري فلان باسان إيالي شرعا إلى تراد المبنان إلهي وحوليه
qoladii gaalada waxaa lagu yaqiinay nebi maxamed ay ku eedayn jireen wain tusibhum xasanatun yaquluu hadihi min cindi illah wain tusibhum sayi'atun yaquluu hadihi min cindik qul kullu min cindi illahi fama lihaulaai alqawmi laa yakaaduuna yafqahuuna xadiidan baa ilahay uli haddii ay dhib yar wanaag hadday helaan waxay leeyiin wanaagaan annaga ilahay agtiisa uu nooga yimiday waana astaahilna haddii sayi' oo makruuh abaar iyo dhibaato ay ku dhacdane waxay leeyihin haadihi min cindika maxamedow adaan ku sharaysanay waayo haddaan jaahilnimadayna iyo waxayna iska haysanahayn barwaaqaan helinayna diintan iyo khayrkaan aad nafaraysa daraaddeed yaaba dhibkaa noo keenay markaasaa ilahi wuxuu yihi qul kullun min cindi illah wanaagga iyo xumaantaba qadar ilaahay bay ku yimideena ilaahay xaggiisay ka yimideena lagu yidhi markaa famaa lihaulaai alqawmi laa yakaaduuna yafqahuuna xadiisa qoladaas maxay wax la garan la'yihiin baa layidhi wax ma fahmayaan liannahu nafcigi ninkii keenay unbaa durna keeni kara marka seed u dhihi kartaa markiid wanaag heshana ilaahay baa isii markii dur iyo dhib kugu dhacane adiga igu sabab wax iskeeni kara ma hadday caqli lahaan lahaayeen way iska ilaalinahayeen baa layidhi nabiyullaahi muusa qowmkiisa ayagan sidaasay ahaan jireen sideedaba atawaasaw bihi bal hum qawmun taaguun ba ilahay u yidhi waxay dhihi jireen faidaa jaa'athum alxasanatu qaaluu lana haadihi wain tusibhum sayi'atun yatayaruu bimuusa waman macah haddii wanaag ay helaan waxay leeyihiin qaaluu lana haadihi midda annaga iska laho caqligeena iyo karaankeena aan ku keensan hadday dhibaato iyo makruuh ku dhacdane yatayaruu bimuusa waman macahu muuse iyo dadkii mu'miniinta a noogu sabab diintan iyo waxaan aad wadaan oon caadadeeni aan wax aad ka bedesheena abaartan ma ursabay saasay leeyihin ilaahay wuxuu ihi alaa inamaa daa'iruhum cinda allah walaakina aksarahum laa yaclamuun baadka iyo dhibaatada iyo balaayada iyo xumaanta dhibka ku dhacaya ilaahay baa ku qadaray macsi ay sameynaan looga abaalmarinayo laakiin badigood wax ma fahmayaan layidhi fahmi la-aantaas daraaddeed yaa waxay ka raadinayaan bushiga meel uusan ka soconin yay u raadinayaan ayib waxaa laga yaabaa inuu qaarkiin yidhaahdo war ninkii haddii uu ilaahay waxaan ahayn ou ka cabsado qofkii miyuusan xaq u lahayn inuu ka cabsado sida baabuurta uu kaga wareeganayo sida maxaan ku idhaahdaa ou libaax hadduu kasoo baxo u kaga cabsanayo miyuusan ilaahay keyrkiisa duu rajeena maxay dhibaysa haddaad tidhaha waxaan ku leeyahay cabsida iyo rajada waa laba shay oo in cibaada a weeyaan haddaad ilaahay ka cabsatid qurba weeyaan haddaad ilaahay rajaysidna waa qurba oo ilaahay loogu dhowaanayo marka shay daacad ah in ilaahay keyrkiisa loo iilo oo macnaha loo jeediyo ma banaano haddii aad cibaado ama shay ilaahay loogu dhowaado niman ilaahay ahayn aada ugu dhowaatid waxay noqonaysaa waa gaalnimo islaamkii baad kaga baxaysa walidaalika ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala wayakhshawnahu walaa yakshawna axada ila allah asiga unbay ka cabsanayaan dadka mu'miniinta oo lagu yaqaan caqiidadooda ay sax tahay ilaahay unbay ka cabsanayaan walaa yakshawna axada ila allah sidaas oo kale falaa takshawhum wakshawnii baa ilaahay uu leeyahay waxaa lagu ceebay dadkii yidhaahdeen yakshawna annaasa ka khashyati illahi aw ashadda khashya dadkii ilaahay uu ku yidhi dad baa waxa weyaan cabsidii intii ka badatay waxay lamid dhigeen sidii ilaahay uga cabsanaya wax lamid in dad kale ka cabsadaan waa lagu ceebay waxaa leedahay arrintaas arrin sax ma ah sidaas oo kale wayarjuuna wayakaafuuna cadaabahu yarjuuna raxmat allahi waa qayb wayakaafuuna cadaabahu waana qayb kaloo loo baahan yahay sababta saas loo yeelaa maxay tahay haddii ninkii bani aadamka ahay haddii caawa ay arbaca soo gasha ama talaada waa cabsanaya maalin fulaan baa timid waa cabsanaya shimbir baa agtayda ka buush waa cabsanaya fulaan baa isoo fiiri waa cabsanaya ninkaa macnihii waxay noqonaysaa nin ummadiisana aan waxba ku taraynin naftiisana aan wax tarayn liannahu ciddii socotana waa ka cabsanaa ciddii wax u malayna waxbuu ka rajaynaya ninkaas maba noqon kara nin mu'min e maba noqon karaba waxa weeyaan wax allaala wixii socdaba waa meeshaana layga gaaraan umalaynaa jiro yar hadday ku dhacda dhibaatada xaggaasa iiga timidaan umalaynaa khasaare hadday qabatay maalinkaas ay meeshaas iga gaartaan umalaynaa fulana isoo maraan umalaynaa wixiisa dhan sidaas bay noqonayaan marka sidaas waxa weeyaan ninkaas nin bani aadan oo caadi ma noqon karo walidaalika nabiga calayhi salaatu wassalaam yaa wuxuu leeyahay laa cadwa walaa tiyarata walaa haamata walaa safar caadaadkii waxyaalaha ay u aqooni jireen waxa weeyaan wax laysku reebanayo oo qofkii asiga cudur kugu ridi karo biduuni taqdiirin min allahi ilahay asoon kugu qadarin ma jirtaa leeyahay walaa tiyarata wax la baasaysto oo dhibna kuu keeni kara nifcana kuu keeni kara ma jiraan buu nabi yidhi walaa haamata guumays wax la yidhaahna ma jirto
oo waxa weeyaan dad baa waxay shimbir baa xalay saaki guriga agtiisa ku soo degtay sidaas ay u qaylisay marka waxa weeyaan dhibaato dhici doonta gurigan waa laga dhima doonaa qof abu ka doon saas la diiday shimbir iska buubay geedkan haduusan ku degin geedkaas kale uu ku degi lahay marka ina tiraahdo koonkan wixii xaraka oo socdabo ina tiraahdo waxaasay la socdaan ina tiraahdo waxaad noqonaysaa nin aanan damiir lahayn nin aan kalsooni lahayn nin aanan isku filnaasho lahayn aad noqonaysaa marka taas waa la diidayaa waxaasoo dhan ma jirta buu nabiga calayhi salaatu wasalaam in xadiis saxiixayn fi saxiixayn laa cadwa bukhaari iyo muslim ay wariyeen walaa tiyarata walaa haamata walaa safar waxaa lamid ina tiraahdo beelheblaya soo gashay bishaan laysma guursado bishaan maxaan ku iraadaa lama guri galo bishaan saan lama yeelo maalin heblay lama sameeyo waqtigaas lama sameeyo waxaas waxa weeyaan kitaabka ilaahay may ku qoran tahay maya sunnada nabiga may ku qoran tahay maya xagee laga keeni karaa marka ayaamta ilaahay waa isku mid ma la kala dhihi kara tanaan dhib wadato tanaanan dhib wadanin daacada taas hala sameeyo jumcada khudbay leedahay maalmaha kale waxa weeyaan cibaadadooda ay leeyihiin wax la isku dari kara ma jira sidaa daraaddeed yaa ilaahay wuxuu yidhi ninka qofka bani aadamka oo aan qof kastaba rajaynay qof kastana ka cabsanaya wuxuu la mid yahay ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا وحا إلهي أنوغ مهماحي ولله المثل الأعلى إله نمذا حقا إيا وحا بادل كتعبتنيسين فرق يقول لحي وحيرا الذين كتسنا ومهماها الذين كتقاني هل لنو أدونا oy 10 nin iyo 20 nin ay isla leeyihiin oy kulligood iskhilaafsan yihiin ninka wuxuu leeyahay istaag kana wuxuu leeyahay fariiso kan beerti aad kan dukaanki aad uu leeyahay ninkaas adoonka wax ma qaban karaabo jawaabtu waa may liano yow ateecayuusa ka taga ninkaas ma la mid yahay nin hal adoon kaligiis oo ilaahi subxaanahu wa tacaala hal nin oo sayid u sameey oo uuna toosan yahay isku mid miyay noqon karaan maya marka waxa weeyaan ninka adoonka oo ilaah kaligiis caabuday waxa qeyb uu kamid yahay oo la mid yahay baaleere nin adoon ah oo nin sayid uu leeyahay walillahi almathalu ala wa soo dhaweyn weeya ninka kale oo adoonka muslim sheeganay oo cid kastana ka cabsanay cid kastana rajaynay wuxuu la mid yahay halkii adoon oo 10 qofood ay wada lahaayeen ay 10 koodina iskhilaafsanaayeen sidoo noloshiisa uu ku nooshahay oo kale uu ku nool yahay baa dareemi kartaa dhibka ay leeyihiin marka wax arintaas islahaan karta ma aha marka sana waxa loo baahan yahay marka muslim hadaa tahay wixii ilaahay ka cabso ku yirana ka cabso oo waxa weeyaan ciqaabkiisa sharta oo ka dafogow leeyana ka fogow nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri kama fi xadiis ibn mas'ud xadiis saxiixa at-tiyaratu shirkun bu nabiga kaleey salaatu wasalaam saddex joor buu ku celiyay marka tiyarada waxa weey wax la baasay waxa weeyaan cabsi aad ku gaaryeelaysa markaasuu nabigu wuxuu yiri wama minna illa walakinna allaha yudhibu bitawakkul nin anaga naga mid ma jiro illa waxa laga yaabaa inuu tiyarada ay naftiisa ku dhacdo laakiin tawakkul buu ilaahay ku tagsiina waxa leedahay ilaahay baan tala saartay wixii asiibayani waa ii qoran yihiin wixii iga maqlan iguma dhacayaan sidaas ay ku baxayaan markaasuu nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri laysa minna man tatayyara wala man tutayyira lahu aw takahana aw tukihina lahu aw sahara aw sihira lahu ninka muslim hadaa tahay inaad meelo badan ku xirnaatid lama rabo waxa weeyaan baasays iyo wax la sharaysa ma jiraan wax faal iyo balaayo la isu dhiga ma jirto waxa loo baahan yahay qofkii inuu noqdo adoon kaligiis oo ilaahay gaar ku ah oo marka Allah markii dib ay ku dhici rabaan yiraahdo ilaahay baan aniga aan ka magan galay haday ku timaadaan yiraahdo ilaahay baa ii qadaray labadaas waxaan ahayn wax soconaya ma fi musnad ahmad waxa ku sugan xadiis oo xasan la yiraahdo man raddathu tiratu faqad qarafa shirka markaas waxa ilaahay rasuulkiisiyo wama kafaratu dhalika ya rasuul allah قال يقول أحدهم اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك نكي باسيس شمبر بمان تبوبي كاساتي سفر كي وكا نقرنيا لأنه إنه سفر كان في عين وحي يقول دليل قلير باقري يسود دقي أما أنا سعودي وحي يقول قايلين marka waxa weeyaan ama faal baan dhigtay waxay soo baxay wixii xumay ninkii taas daraadeed wixii uu qaban lahay ugu baaqdo qayb shirki uu ku dhacay buu nabiga kaleey salaatu wasalaam markaas wuxuu maxaa u daawo ilaahay rasuulkiisiyo markaas waxa jira ilaah wax la baasaysa oo adiga aadan qadarin ma jira
ilaahu khayr adiga aadan bixin ma jirto laa ilaaha hayruka inaad tiraahdo qalbigaada tawxiidkaas ku nadiifisid yaad kaga bixi kartaa. ayib marka qofka muslimka waxaa laga rabaa inuu aayaadka si gooni u dhuuxa. ilaahay wuxuu leeyahy waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbuhu, ninkii ilaahay tala saarto asaa kugu filan, dhibna asaa kaa ilaalinaya, khayrkoo aad rabtidna asaa ku siinaya. ninkii aayaddaas akrinaya ee maqlaya fahuwa xasbuhu, ilaahay baa ku kaafiyo, xasbuna allahu wa nicma alwakiil akrinayo, ee maca daalika kayrkiisa asigoon waxba aan qiimo lahayn maanta dhanna daba orday ee ka rajaynaya khayr ama shar uga cabsanaya dhahay ama uu dhib kuu geysta, aayaddaas macnaheedu usan fahmin. waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbuhu. ilaahay qur'aankiisa wuxuu ku leeyahy maa asaaba min musiibatin fi اlardi walaa fi anfusikum ila fi kitaabin min qabli an nabra'aha. bal u fiirsa aayaddaas si fiican u dhadhanso. ilaahay wuxuu leeyahay qofka bani aadamka musiibo ku dhacdaa kuma jirto, ardada ha joogo ama samada ha joogo ama dhulkiisa ha ahaado ama naftiisa ku dhacda ma jirto ilaa fii kitaabin, waa la qoray, horay u qoran tahay, min qabli an nabra'aha, naftaas intaanan abuurin yaa wax allaale wixii ku dhici lahaay oo dhan oo shar ah ama dhib ah way qoran tahay. mar allaale wixii khayr aad heli lahayd intaan lagu abuurin baa la qoray. marka maanta derbigan ka leexa, inta ka leexa, aynamaa takunuu yudrikum almowt walow kuntum fii buruujin mushayada. waxa weeyaan sabab adiga aada la timiday qadar ilaahayna kaama celinay, laakiin waxaa la rabaa asbaabta daahirada inaad samaysatid. adiga wixii karaankaada albaabtaada xero, xoolahaada iyaarso, lacagtaada meel fiican dhigo, karaankaada ka bax. laakiin hadhihin min fulaan hadduusan raalli uga ahayn waa layga wada qaadana kulligii. nabiga calayh salatu salam wuxuu yihi xadiid oo fii saxiix muslim ku sugan kullu shayin biqadarin xata alcajzu waalkays. cajziga waxa weyaan tabadarada iyo taagdarada iyo daacadii aad ka gaabinay xataa qadar hore weeyaan. kayskana waxa weeyaan caqligaada iyo kamaalnimadaada tawfiiqda aad heshay xataa naftigeeda waa qadar min allahi tabaaraka wa tacaala. marka waxaa la doonayaa nin mu'min haddaad tahay inaad ilaahay markastaba aada barisid. waxaa kula gudboon haddaad wax ka cabsatid inaad ilaahu waxaan ilaahu iga kaafi. haddaad wax rajaysidna ilaahu waxaas ilaahu khayr ka isii inaad tirahdid. nabiga calayh salatu salaam wuxuu noo jiday istikhaara. haddaan doonno mashruuc horo aan galno ama guur ama tijaara ama wax lahale inaan galno, haddaan doonno inaan istikhaara 2 ragca aan dukanno oo aan markaa ilaahay weydiisanno, ilaahu khayr hadduu yahay arrintaan iwaafaji, hadduu shar yahayna ilaahu iga celi inaan idhaahdo yuu noo jiday. khayrkaasaa lagu raadiya. waxaad ogaataa wuxuusan ilaahay kuu ogolayn adiga heli maysa. sidaa daraaddeed waxaan jeclahay, caadadka way badan tahay waana dhammaystiri doonaaye, laakiin hadda qaybtii ugu horraysaan ka soo qaatay oo ah caadada caqiidada dhaawac u keenaysa. caadada kale oo shareecada islaamka ka hor imaanaysa oona macsi ah qaybyaalka dambaan ku dari doonaa. waxyaalaha shareecada islaamka aan kula dagaalno aan u diidannahay baan qayb ka dhigi doonaa. laakiin waxa weeyaan qof muslim haddii aad tahay waxa ugu qiimo badan oo adduunyadan ku haysato waa caqiidadaas. caqiidadina ma ansaxayso inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala aada rajayso, asiga keligiis aad ka cabsatid, asiga nafci iyo dur uu lahaaday keligii unbaa looga bixi karaaye ilaahyaal badan ha yeeshanin. cid kale oo aan waxba kugu tarayno waktigaa iskaga tagsiinin. haddaad cabsanaysa ilaahay ka cabso, haddaad rajaynaysa ilaahay rajeey. haddii aad wanaag samaysana shareecada islaamka ku camalfal. waxa keli aad ku bixi karto waa intaas. haddii aad ku samaysid waxaan ilaahay ogolayn inaad ilaahay aad wax uga helaysa aad moodidne ciqaab iyo cadaab iyo adduunye xumo unbaa kugu dhacaysa. sidaa daraaddeed waxaa weyaan qaybtaas hore ayaan ku gaabinayaa anoo jecel caadada kale oo sharciga islaamka khilaafsan oo caqiidada aan ahayn inaan qayb kale kaaga hadlo. wallahu aclam, sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed. jazaaka allahu khayran, inuu ilaahay khayraa ku siiyo. insha allah waxaan u gudbaynaa markan qaybtii su-aalaha ahayd, ayadoo barnaamijkana dadku ay su-aalaha soo weydiin karaan, khaasatan dadkii waxaa munaasab ah horay u dhageystay duruustii horey looga hadlay oo ahayd aladillat almuttafaq almuxtaju biha almuttafaq calayha, adilada laisku waafaqsan yahay la daliishto oo kitaabka sunnada ijmaaca iyo qiyaas. waxaan aragnaa dad culimmada ha u horeeyaan khilaafa intaas aada soo sheegtay, haddana markii la weydiiyey qaacido ka dhigta khayr batay wa marka wax khayrka intaas dhaafiisan oo khayr batay daliil laga dhigan karo lagu camal fali karo ma jiraan. jazaaka allahu khayran. waa su-aal aada u qiimo badan aan doonayna inaan si fiican uga hadalno. waxa weeyaan haddii ay tahay shareecada islaamka in wax lagu dari karo,
haddee wax macno ay shareecada leedahay ma aha. ilaahay wax buu ogol yahay, waxaan hadday dhacaan waxaan halagu daaweeye buu yidhi. haddii adiga wixii waxaan ahayn aad ku daawaysid macnaheedi shareecada maba u baahnin weeyaan. sidaa daraaddeed shareecada islaamka ziyaadana lama ogolo, in wax laga nusqaamina lama ogolo. haddii aniga aan idhahda bal adinka waxaan idin siinaa misaal ahaan, duhurkii waxa weeyaan 4 ragco waa ummadda saasay ku ijmaacday. haddaan hal ragca ka nusqaamiyo maxay noqonaysaa? adiga bal isweydii, sawma qaab xumo salaad may ansixaysaa? diin ma noqonaysaba? haddii hal ragca lagu darna sidaasun bay lamid tahay. haddii cibaadadii shacaa'irka tacabudiyada ay saas u xun tahay, waxaa lamid ah shareecadii xukumkeedii iyo wixii mucaamalaadka lagu kala baxayna, wixii shareecada ay ugu talagashay haddii laga nusqaamiyana waa un salaadii oo ragca laga gooy, haddii lagu darana waa un salaadii oo ragca lagu daray. hadday ansixaysa salaadaas adaan ku weydiinay, haddayna taas ansixaynin tanna ansixi mayse. mu'minka wuxuu noqon karaa markii ilaahay amarkiisa sidiisa u fuliy samicnaa wa atacnaa inuu yidhaahdo. ee nebi maxamedna uu kaga dayday wuxuu la yimid waxna uuna ku darin waxna uuna ka nusqaamin. markii nusqaan la ogol yahay waxa weeyaan markii qofkii xaqi lahay xaqiisa la yidhaha intaasaad leedahay, hadduu yidhahdo anaa intaas kuu dhaafay, taas waxa weeyaan samaaxa fi lislaam aa la yidhahda. marka yaan la isku darin waxaan ilaahay diintiisa kamid ahayn iyo wax diinta ilaahay ka horjeedo, yaan diinta ilaahay laga mid dhigin. arrintaasaan aniga ku gaabinay. jazakallahu khayran. su-aasha xigta aan ku weydiinayo intaan dhegeystayaasha u gudbin waxay tahay, marka laga hadlayo sunnada, waxaan in badan aragnaa bulshada noocyadeeda kala duwan in badan ay sahladaan amba ayba yidhaahdaan waxaas sunno leh uma ay yarayn ku sameeyaan iyo xaqirid. taas diinta islaamka maxay ka qabtaa? sunnada horta laba macnoay leedahay. mar sunna waxaa lagala jeedaa bimacnaa ariiqati nabiy sal allau alayh wasalam. taas waxa weeyaan waajibkiyaa soo galaa, ruknigiyaa soo galaa, manduubaadkiyaa soo galayo. horta taas ha la ogaado. masalan haddii aan idhaahdo waxa weeyaan min sunati nabiy sala allahu alayhi wasalama annahu yusalli subxa fii khalasin, haddii nidhaahdo sunnadii waxaa lagala jeedaa waktigii salaada nabiga alayh salatu slam uu dukanay. marka fariidadii iyo wixii dhan way soo wada galaan. jidkii nabiga hadii la diintii oo dhan baa soo gelaysa. marna sunna bimacnaa taqsiim alfiqhiya lagala jeedaa oo waxa weeyaan waajibaadka iyo faraa'idka wixii kasoo haray ayaa loo jeedaa. sunnada waxa weeyaan qofkii hal sunna waa ka tegi karaa oo waxaa la yidhahdaa maa laa yucaaqabu taarikuhu wayuthaabu faaciluhu baa la yidhahda. laakiin sunnadii kulliyatan in looga tago oo waxaan sunna miya hadii la yidhaahdo, sidii axmed ibnu xambal oo yidhi ninkii sunnadii ka wada tago oo dhan oo sida witerka oo kale waxa waa rajul suu buu yidhi. sunnadana waxay u tahay sideedaba, sunnada waxay u tahay ilaalmay faraa'idka u tahay. ninkii sunnada la imaan waaye maanta faraa'idka inuu ka tago waa huban tahay. sidaa daraaddeed waxaan leenahay sunnada horta bacdala fahma waxaa lagala jeedaa markii sunnadii la fahmo haddii ay tahay qaybtii fiqiga sunnada ay u yaqiineen, waxa weeyaan nabiga alayh salatu salaam wuxuu sheegay qiyaamada markii la tagay ninka faraa'idkii salaadii la weydiina. haddii salaadii faradkeeda naqsi lagu arko waxaa leeyahay sunna uu sameeyey ma jira. sunnadii haddii laga helay inuu sameeyey wixii faraa'idkiisa naaqiska ahay baa loogu dhamaystiraya. haddii laakiin laga waayo ciqaab buu ku dhacay. sidaa daraaddeed ma aha sunno waa shaygan in layska yidhaha layska fududaysto, waajibka in lagu fududeeyo ay dhacaysa hadhowdam sidii nabigu u yidhi oo kale man xaama xawla alxima yuushiku an yaqaca fiih. marka ninkii sunanta ka taga faraa'idka inuu ka tagana way caddahay. sidaa daraaddeed waxa weeyaan naftaada casiimada ku qabo meesha kore kasoo bilow sayna wax kaaga tegin oo kale. wallahu aclam. khayran. markan waxaan gelinaa qadka ugu horeeya. assalaamu calaykum. wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. laga magacaa waintasaadi xaafada suuqa xoolaha. hind mawduucan oo aan sheekha hore uga soo hadlay in badan haddii aad la socotay maxaa su-aalaad ka qabtaa? marka sheekha ajira soo koobi kariya xafad allah tafsiisada oo waxyaalo badan noogu sheegay walakin insha allah diinta ku saabsan. hadda in ugu dambeysa oo ay shaada dhaqamada arbayna dowladka weydiiyo sheekha. su-aasha hore waxaa waay horta in dadka caadooyinka aad u badan yahay ku dhacay hataa in maanta jimcada waxaa soo baxa meydada soo baxda oo meydada waa in la siiya isagoo bad iyo wax la siiyo hadaa la siina dhibaataa nagu dhacaysa. horta halkaas way dhaxaan. midda labaad oo kale waxay tahay waxaa arkaysaa inay ku dayan dad iisida caadooyinka waxaa waaye in sida xalq oo kale maska oo kale aanoo ku tufna oo caalow lehna inaan ku tufno marka ana dhahin meela noo furo noo imaada hadaa u tago dambi inteeda
يقصد قال قبطة طيب قبطة كتفا مستعطى كتفا ورئيسانين متى كانوا هوا عادوين كهرطة كيف النقصات كيف ما معي حتى عادة اللي قلت قال حتى ناس جنتي سواء قبطة على قبلها إن اللغة عادة اللي قلت على على الله يعني يقدر حتى كلها ممكن وقت نقصات ديرت عادة يو وطبعا نقصات ديرت عادة وقت سمعنا نقصات ديرت وجزاك الله خيرا بارك الله فيك مدة ميتة إني سوبحي سمالين الجمعة مشكلة جرتها وحيتها يرتو وحويان هدي أن وحكت عن ويدين شريعة الإسلام كما حيث قبتها جواب كذي وان اسكهيلي لهم نينكا ميتة وماشي جوبتو ومالين قوني أي أسوبحيان وأي ليهن ويدتكو ذو إيمانا ينمجرة بتاتا ملك صارت لا في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لكن قفتي وحويان أسوه هردي قريبتي سواء أركي كرا أيضون السبتية أيضون جمعة أغريوكو أركي كرا إن هذا البدن إسلاف صدانا دعي كرتو قفك مؤمن كغيبك وغان كرا وحاكمي ذا الرؤية الصالحة بالإيران لكن ليرا هذا مالين كاس على إيمانية مالين كاس راشين هالله دياريو وحي أي شرع الإسلام في كل هذا ينمجرته مشكلة إتاينا وحويا وحي بإيمانية نوع من العقوق وإذا أما أبها أما ولالك أودنتي إن الأسبوع دي هالبري كلي قفتي أولي هذا مالك عشان ما أنسى مفل وسمينيه وحال ربا مر الله لمركز سوحة ستد مركز سلاد وكتد مركز خير سمي ستد إن الأيد أني ستد وأيقعد أدعي سيدا لو قبعها يا مويه هدي أسرى الجمعة كري أنا أخصيصيها وحال وفالحون وياتاس وحصح مرأها شريع الإسلام كون وحي كل هذا إن ما جرته نيكي هذا أرنتها ساجرتنا وانين باهنو أمد دوني إنه بنك كقعنو وحشرع الإسلام كاشق كل معه سؤال كلو حيد dadka dhaho jirooyin khaasaan ku tusnaa amba dabaqalooca amba maska amba hebelo ma jiraan wax sidaas oo cuntooyin waliba waxa dheer cuntooyinka qaar ma cunaan dadkaas amba sandaw amba wadnaha amba hebel amba xubin hebel ma cuno maadaama aan hebel ku tusnaa yiraahdaan waa arin aad u fiican ayadana ruqyada nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu riyay dad oo ruqyada waa jiraan oo jirooyin gooyin ku tufo marka la ruqyata illa min aynin حديث صحيحة كسو أروري حاسي سنة جبر أو مؤمنات كميد هو رادينك وحاتى قانين رقيادة جبر عن رقيادة بر رقيادة مركب حيث أساسين انتو يدينوا رقيادة وحويان وقف كان إلهي وحومه بأسيي شريعة الإسلام كونه كأسري مركب أنا عن رقيادة سمينة رقيادة وحليسكو أخرى باجرته المعوذتين وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس آية الكرسي هي وحي لحل الرقية صح أو يعني شرع الإسلام كوافق سنويا وحي كصوهري لما ديه كريو رقية أنا قال لا يهي درادي ذان هذان راشين وقتغيا أصل أي كل هذا هي مجرته قف كان وحلو باهي أنا وحانا كدد بدن أو كان كرين تكون دعي لليه إسبتال لك ما فلانا كنت في صبح كستك صعد الماني ومركي والعذر تعدي بالله لهينا ولقى جارسين كري لهي ما أين السميني مركي وحويان وخلط وحن ميل عن سبب عن إن أو شرعا لتعبان كرئين سبب لقده وقت اللي سوقاته مبنانا شرعا مركي سيدا دراديس رقيادة الوحالة فيرينيا وحل يسكو أخرينيا هي قفت أخرينيا توسنا شدي سريعة وكتوسنته قفت هذا الإسلام كتوسنيا وحو أخرينيا وح أسل أيهين إن شاء الله تعالى وينفعي سويتك شهر مايا dadkaas waliba candhuuftooda kaliya marayaan ayadoon waxba akhrin in badan oo kamid ah candhuuftooda inay daawo tahay la aaminsan yahay waa wax sax ma aha wax jiri kara maaha waxa dhan oo ka hadli doonayna kamid tahayo dad baan oo aragnay dad kale intii qabaystaan biyahooda dadka cabsiinay wax badan baan ka hadli doonaa wax saxna ma aha islaamka ilaahay wuxuu kugu soo dejiyay inuu ku xoreeyo nadaafad iyo wanaag iyo toosnaan laakiin in isu duleysado carra aad cuntido turaab lagugu magacaabo wax diinta islaamka shaqo ay ku leedahay ma aha جزاك الله خيرا هذه الحلقات هوري دروس كبحري مش كمد عن دين إغلاطه وحد كسر في مسائش دينته هي الأدلة اللي سكوا فحصين مركا وحنا رجنا الأدلة اللي سكوا فحصنا أيضا قار علماء كمد لا يال إني خلافان قارنا إيوا فحصين مركا عامل أركته علماء يكوكلا كسن لكن من لا يال إن الأدلة أوحي إن عامل أوقات مسألة عن علماء أكوكلا سنة ويحدم بود الدين لغدي فقرنا المسألة خلاف الذي ترى خلاف معتبر وياها. وحويان وأرين ماشي كجست مشكلة جتا وحيت يهرت وحى مجا علماء كنا سبشيغنا أسكبنا. مركب وحاسو قلي كردت بدن
oo aan culamada aanan ahayn ee cimaamada inta u xirtay doonaya maslaxadooda inay ka xaqiiqsadaan sidaa daraaddeed dadkaas ha ka maraynin marnaba inay xaqna sheegaan horta haddii doonaan inay sheegaanna maba yaqaanin waa mid hadday yaqaaniinna maslaxadoodii bay ka hormarinayaan oo waan sheegnay oo umamtoo dhan bayba ka jiri jirtay masaa'il la isku khilaafi waa jirtaa oo masaa'il fiqhiya oo saxaabadii waman bacdahum ay isku khilaafeen taasna waxaa daawo u ah qofkii hadduu jaahil yahayne aniga jaahil baan iska ahaana horta lagaama yeelaya waxaa laga rabaa shar islaamka ina wax ka barat waa qayb haddaan wax ka baranane labadaan iskhilaafsan maxaan ku kala bixi karnaa kitaabka ilahi sunnada nabiga alayh salatu salaam ha loo bandhiga hadalkooda wama اkhtalaftum fiihi min shayin faxukmuu ila allah haddii qofkii uu caamiyo uusan garanaynin waxaa la yidhahda xaqa calaamaad uu leeyahay nin dankaa raadsanayo oo maslaxa leh oo maanta dhan dadka daba ordaya oon adiga dhaqaalen kaa qaata rabo iyo nin khayrkaas inuu kusoo gaarsiyo wax uu kaa doona aan lahayn laba calaamay bay kala leeyihin marka adiga inaad fiirisid oo ninka markuu wax sheegayo wax ku raadsanay iyo nin diintaas inuu faafiyo adiga kula xanuunsanayo inuu dhibkaas kaa keeno bal adiga arrintaa kala faham markaa kadib ninkaad culamo ka dhiganaysa adigaa taqaanid hadhowtina waa lagu weydiina oo cilmigiina baro xaqana waxa weyaan calaamooyin badan loogu garta buu leeyahay meeshiisa u raadi baan ku leeyahay jazaak allah khayr assalaamu calaykum raadiyaha iska dami walaal magaca amiin raadi haya amiin su-aashaadu maxay tahay walaal horta waa sheeg in badan buu mahadsan yahay mawduuc aad u wanaagsan oo maarata qiimaro waaye laakiin in ahaata waxaa jirta wadaadada way fara badan yihiin mashaakilka wadanka soomaaliya jilkilateeda waxay aad ugu kala qaybsan yihiin xagga aragtida diinta inkastoo maaragtay farqooyin fara badan ay jiraan siaan la socono su-aashaas soo koob waxaana soo koobaya marka waxaan doonayaa sheeka haddii nin sheeg oo caalima diinta islaamka in badan ka garanaya oo yidhaahdo kasoo qabo waalidkoodintoo kale ama wakti noocaasa ixtifaal noocaasa u samey yidhaahdo amiga waktiga noocaasa hafakrin ama hasaahiyeen yidhaahdo oo markaa ninka u yahay nin markaasi cilmi leh cilmiga u yahay oo dacan ku dhaqma wax markaasi daliil uu sheeka ka qabaa arrinta noocaas diintu maxay ka qabtaa sheekh muhiim maana diintu maxay ka qabtaa waa sheeka daasana hadla yihahde mayanaha daliil waa inuu ku hadlo ayo sax weeyaan walaal waa mahadsan tahay runtii mushkilada jirtaa waxay tahay annaga haddaan horta diinta wax ka baranno waxa iska sahlanaan lahay cid kastoo ama wax ku amarto ama wax kaa reebto in la tiraa shiikhu maxaa u daliil marka daliilkii ima inuu aayad kitaab uu keeno qur-aankii kariimka ay ku dhex jirto inuu xadiid nebiga uu keeno xadiidkii waxaa laleeyahay haddana maasixatuhu xadiidkaas nebiga ma ka sugnaaday ninka markuu mufti noqon karo waxa weeyaan markii wax la weydiiyo meel uu ku asalayn karo marka haddii adiga aad tirahdid ninkaa sheekha oo weyn oo dadka ay daba socdaan baan aniga arrintii ii xalilay waxaan leenahay mashaa'ikhda wax ma xalilaan waxna ma xarimaan waxaana kugu ziyaadinaa reer bani israa'iil iyo dadkii ka dambeeyey waxay ku dhimeen ittakhaduu axbaarahum warubaanahum arbaaba min duuni illahi buuri markaasaa nabiga ninkii maqlay Cadi ibn Xaatim wuxuu yiri ilaahay rasuulkiisu rabbi kama dhigan markaasuu yiri dadka culimada u taqiineen soo waxna idin kama xarimi jirin waxna ma idin xalili jirin ilaahay ogoleen markaasuu yiri taas waxaa cibaadada qayb ka tahay marka waxaa la rabaa ninka waxa keenay fawdada waxa keenay dadkii caamadiya badatay wax allaale wixii loo sheegay ay kala garan maayo taas waxay fursad u noqotay nin kasta inuu meesha iska soo galo wuxuu rabo uu sheego laakiin ummadda wacyigeeda haday soo saramari lahayd diinta ay wax ka aqooni lahayd waxay kala garan lahaayeen ninka xaqa sheegay iyo ninka baadilka watay kala garan lahayd marka xal anagu uma aragno ilaa in diintii wax laga barto oo masaajidihii la tago oo culumtii la dhagaysto oo qofkii u isdhiso marka waxaad garan kartaa laba qofood markay hadasho inay xaq isla wada keeni karin taas uu ogow wallahu a'lam jazaak allah khairan waxaan rabnaa Dr. Umar xalaqaadkaaga tii labaad oo kale waxaad ka sheegaysay in nusuusta sidii sheegaysa la khilaafay masalan marka la joogo tacsiyada oo kale ijtimaaciya iyo la sameeyo weliba waxaan aragnaa qofka markuu geeriyoodo intuu aan la joogin dugda loo ololeyn dawrac iyo la sameeyo rag culimaana inay yimaadaan subac iyo adduunyo iyo quraan iyo qabtaan intuu meesha yaal taas diinta meel ma ku leedahay mise waxa lagu khilaafsan yahay shariicada kamid ah waa iyadoo aan meel looga gabanin waxay kamid tahay waxa shariicada meel weyn looga dhacay nabiga kaleey salaatu salaam wuxuu yiri ninka mu'minka hadduu dhinto xaqa uu dadkiisa ku leeyahay waxa ugu weyn in la degdegaan joogitaankiisa isla markii in qabrigi iyo karfantiisi iyo dhaqitaankiisa iyo salaadii in lagu maro inaan meel kale lagu daahin karin markaasuu nabiga yiri marka hala degdego fa in kaana saalihan
فخير تقدمونه إليه وإن كان شرا وإن كان غير ذلك فشرا تضعونه عن رقابكم marka wax kale in la sameeyo ma banaano in guri la isku yimaado oo asiga gurigiisa iyo raashinka lacagta uu ka tagay la cunana ma banaano wixii aan hore ugu soo hadalnay waxaan kuu sheegayaa waxaanu aragnay nin baa dhimanay ilmo yaryaro agoomuu ka tegayaa dad badan oo malaayiina u kulmay waxaa la bilaabayaa lacagtii agoontaas ay laheedo looga dhintay iyo guryahoodii iyo xoolahoodii inay cunid lagu bilaabo ninkii meydkaana uu meesha yaallo marka taas inayna diin ahayn in aladiina ya'kuluuna amwaala alyataama dulman inamaa ya'kuluuna fii butuunihim naaran baa ilaahay u leeyahy marka waxaa la isku haystaa nin agoon umburtii gambarkiisi ma lagu fadhiisan karaa gurigoodii ma lagu soo fadhiisan karaa la isku haystaa ninna waxaa waye xoolihii iyo wixii dhammaa iyo gurigii iyo reerkii aa la dhexyaacaya marka taas sharcan islaam maku banaano ninka saa sameeyana wuu ogyahay shareeca islaamka inaysan qayb ku lahayn wallahu aclam jazaak allah khayran hadka xiga assalaamu calaykum assalaamu calaykum السلام عليكم. وعليكم السلام. مقعاولا. عبد الناصر عمر كيلو مسحي ضابط. هي عبد الناصر راجع يتصل اي ان شاء الله. هاي سؤال شهر عبد الناصر. سؤال شهر قبل لو سؤال هو انت على الشيخ بلغيره هي تفصيل. مثل هو الشيخ وحاوجينا وحلونا ان علماء الصوماليه هي فربتين. علمي اسلام كرماتي قرآن صوماليه واضح فربتين. لا تردد محا علماء الدين ان كون شقيان طريقا هذه سبيلي. وبدل كذي مرة كتب بيصيروا خلاف ونص كرناضية كل حتى هي جارب إن خلل الجليل تعرفوا أسواق الكرة إنه مثلا ما كتبوا على بعضهم لو حجور جرو علوم وحضر الجودة علوم الجودة لا تتكلم عليه محاول بيزنا وعلى شهر أيام تساوي الدنيا محاول كورتاجنا ودائما أتكلم الله وحي سنة الإسلام كهوا فقطني لما سألوا عن الله وهي كان هراء عبد الناصر عدي هراء وحاول هراء تمارين فرانك بطل أي صوفر فرانك ما تمارين كل جارهان ما وقت بطل سواء فرانك هراء كور كائن إلى البريد على هذه السبيل أقول تغير ليس خلاف كل مرة كتابا بيسمع فيكر وايه وما هتسنتها واد ما هتسنتها marka khilaafaadka maadaama diinta ay caddahay cilmigan yaal maxay culimadu si kala socotahay isugu imaan la yihiin dad sax waa walaalo waxaan ku sheegay Cabdi Naasir oo sideedaba waxa la yiraahdaa culimada markii hore cilmiga nuqdab u ahay markii cid kasta ay dhex gashay yaa khalad iyo sawaab la dhex geliyay markaas uu cilmiga ziyaaday cilmiga ma la dhameyn karo marka uu leeyahay malaayiin dad baa ka wada hadashay ninna astoosnaan ugu hadlay ninna khalad ugu hadlay tiiba waxay u baahatay in culimo kale ka hadlaan si loo sax marka waxaad ogaanaysaa casri kastoo yimaado nin kastoo bismi ulama sheeganayo khaladka uu galo waxa loo maleynaa diinta inay kamid yahay waxay u baahan tahay juhdi in lagu bixiyo in lagu karanka in lagu bixiyo la sax sida daraadeed asbaabta keentay culimada inay iskhilaafto wax baan kaaga sheegi doonaa duruus hadda soo socoto oo waxa weeyaan ama jamaacad ha isku khilaafaano ama masaa'il ha isku khilaafaano maxaa budhigu maxaas sharciga ka ogol yahay uusan ka ogoleen waxay kamid tahay mashaariicda aan ka hadli doono hadii ilaahay yiraahdo marka culimada in iskhilaafaan ma aha ceeb laakiin waxa weeyaan wax la wada og yahay shariicada islaamka aanan kamid ahayn in si toos loo bareero mid la yaabsan yahay taas weeyaan taa horta taasaan baan ugu jawaabayaa sidaa daraadeed waa in ummadda laga helo markastaba dadka ku hago xaqa ku soo celiyo su-aashii hore taasaan ugu jawaabaya ومدن عادة علماء دك عادة كوردس مثلا بدقلك يستنك يوحول ولا ثمينة وحنا رنا علماء دك كهر تمام جدا وكان هو سوى شيء حويا قفك عدي ويا قف مشقيته عموما وحوشات سنة وحناسي وشيغنا إنه كدك هول وحماشي كجيله وحكى لما أنا وحويا قف كان مركو أمد ورجيه النقد هدي آد ما أنت دوني شدت كان إنه وحكى قادي وإن إلى سنة كان سنة بلائي ويا وإن قرآن بدل لا أخرستا أنا دوني مركا إن ما أنت بقول قفود وحو أخريو أن دوني أنت إن الله كقاد مركي أنا أن دوني إن من سياسي أن دعميو
oo dantayda ina shariicada islaamka aayaadkii asiga ninkaas ayadaysa inaan soo qaato waxa dhan oo meesha jirana sidaas weeyaan waxa asaasan u ah iltizaam iyo cabsi ilaahay baan jirin waa ku danaysi oo islaamka lagu danaysanayo taasna si gooni aan uga hadli doonaa hadii ilaahay jazakallahu khairan waxaad xalqada saddexaad ku sheegtay dilka iyo sida diyada maanta qabiilada ay ka dhigteen marka waxaa su-aasha dadku in badan isweydiinayaan haddii qof muslina la dilo horta yaa diyadiisa iska leh diyadiisa ma la mid tahay 3 milyan iyo wax lamida miya iyo bacyar lacag ku jirto mise diya mana islaamku u magacaabay waa sax weeyaan inkastoo aan midda hore qaybteeda aan ka hadlay oo diyadii ay tahay 100 halaad oo geel iyo wixii qiimaha u dhigmo oo aan niri ninka mu'minka adduunyada zuusho dhan iyo asiga asaa qiimo badan xataa diyadaas ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu talagalo nabigiisa noo cadeey macnaheedii ma aha ninkii dhiigeeda inuu dhigmi karta ma ahan laakiin dadkii waxay dhixi karaan intaas marka bacmadu wax la yiraahdo neef ari ah qof muslim ah in diyadiisa laga dhigo xataa aan hore kugu sheegay qofkii raatibkii hal bil uu qaadan jiray markii la diro diye in looga dhigo waxa weeyaan wax aad u foolxun waay laakiin diyadaas yaala waa mid hadda igu soo nagu cusub oo aan hore ugu hadlin hore waan u sheegno qofka haddii qof gaf u dilo qabiilkiisa qaraabadiisa say u kala dhow yihiin waajib ah inay bixiyaan asiga lagama rabo hadduu gaf u dilo asiga soon un baa laga raba laakiin haddii asiga la dilo diyo la keenay diyada qaadanay ma dadkii hadduu asiga wax dila diyada bixi jiray ma qaadanay mase dadkiisa dhaxlay mas'alada khilaaf umada kama joogto haddii la dilo diyadiisa dadkii asiga dhaxli lahay oo caruurtiisii labadiisii waalid zawjadiisii ay kamid tahay nabiga calayhi salaatu wasalaam ninkii saxaabi wuxuu yiri inna an-nabiyya warata min zawjati ashyam ninka saxaabiga la yiraahdo zawjadiisa oo diyadiisa wax ka dhaxalsiin waxaa loo mooday awalka diyada inay gaar ku tahay caruurta iyo aabaha markaas ay yiri zawjada qayb ay ku leedahay marka diyada qayb waxaa diyada dhan waxaa iska markii la keeno ninkii dhaxalkiisa iska lahay laakiin qabiil lagu ma dhaxli karo taas inaan ogaanano way u baaboon tahay ayadoo 3 milyan si ahayd ya haddana 3 milyan caado waxaa laga dhigtay in dadkii meeshiiba lagu qaybiyo ciddii laga dhintayna aan laga dhigo qof ayay kamid ah dadkaas shaqeysanayd qof kamid in laga dhigo waxa weeyaan wax dhaawac islaamka loogu geystay ummadin la isku baabi'inayo oo jahlina lagu socday kamid tahay midaas wallahu a'lam jazakallahu khairan assalamu alaykum magacawla hayna musaasha laba su'aal aan rabay inaan weydiiyo waxa weeye yani ilmo oo agoon ah oo markaas aabahooda waxa ugu dhintay aysan quudanaynin oo qof kale isbitaaladooda qaaday walaal oo qofkaas oo ilmahan uu siiyo wax sadaqaad ah sida raashinka bisadoo kale iyo laga bixin karaa labaadna dadka hadda yani waxaan leeyahay yani dad badan in awliyo isku sheegayaan qof oo yani oo wadaad oo kale midalan oo soo dhahay yani waxyaabo nooc soo socdaan quraanka hal akhristo inta quraan oo kale door yaasiin oo kale door ay ku sameeyay ilaa aakhiriha oo dhahay yani hal akhristo hal akhrisan karaan wallahi kanta tan hore waxa waaye ilma agoona oo kafaaladooda qof kala qaaday lacagtoodaas oo kafaalada lagu qaado qayb kamid ah cuntada musadaqin kara kafaaladooda lacagtoodii maahan waa qofka kafaal qaado sax waay qofka agoonka mar haddii la kafaalo qaado lacag loo qoonde lacagtaas milki bay asiga noqonaysaa waxay la mid noqonaya xoolihi asiga oo hore u lahaa oo aadiis ugu tagay iyo kuwan dad muslimiin ay ku sadaqaysteen labadaba fi milki yatiim buu galaya mar haddii saas noqotane ninka agoonkaas weliga u ah haddii uu hool beelo qayb waa ka cuni karaa gurigoodi wax waa ka deegi kara maadaama maslaxa yatiimta u ahay laakiin yaytaan baa laga sadaqaynaya ma jirto ninka yatiimka markuu baaligo caqli yeeshta wuxuu rabaa sadaqaysto hadduusan sadaqaysanin xoolihiisa faraha laga saaraya laakiin asagoo yatiim ah laga sadaqayna ma jirto mana banaan laa waalidkiisaan loo sadaqay karin walaa keyrkiisaan loo sadaqay karin xoolahaas milkay noqonaya dadka qaar ay maxay aaminsan agoonta xoolahooda zaka inaan laga dhigin taas ka waran maadaama hadalka aan soo qaadno bixin sax waa wax fiican weeyaan xoolaha sida yatiimta ay leeyihiin hadday nisaab gaato xoolo zaka ay noqdaan zaka waa laga bixinaa qowlka raajixa ah oo adilada sariixa ay ku soo aroortay lianna azakaata tajibu cala almaali bisarfi nadari can maaliki qofka iskale ha noqdo majnuun ha noqdo mid yar ha noqdo qof weyn
xoolaha hadiiba zakada ay gaaraan in laga bixiyaa waajib marka looma fiirinayo yatiimnimadaas taas waa waajib asigoo lagu leeyahay dadka aytaamta ay ku leeyihin وجزاك الله خيرا إن فرصة قدام بيسا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة مقعا. وإن شعب الرواء بين أحد الرواء تقبل الرواء. جاب. مركا وحاجة ليا كتاب الله خير على العظيم غفر ذوي السلام يا مكر السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أنت كنت وحاشي على المحوتين والوطي الجوية لبس الآن غيرية. أي توقف. ده أول رئيسة شعب الحيثة أو سيورا اللي عاد كده واجير waxaad muddaa in culummadu qaarkood aad muddo in maytada markay dhimato ay xusto halka qaarkoodna ay sarfusin oo qaarna aad muddo in suucayda waxyaaba la akriyo dadku waad muddaa kala cabsan yihiin oo way kala raacsan yihiin maadaama culummadu ay yihiin shacabka dadka shareecada kuwatooda ku hagi lahaa saa koob haye shacabku yaa raacnaa oo aan ku raacnaa kow tan labaad gudub waxay tahay waxaad muddaa marka qaarkood isku baa ka dhaca si walaalaadku waxay aaminsan yihiin inay tahay in haddii istumin aysan isgaraacin in aysan kuwa beeru ama isugu dhalayin oo ay waayahay deeq waad mahadsan tahay haddii marka culimadu iskhilaafayaan raacnaa su-aasha ugu dambaysan kusoo gabagabeynay sax waay waxa weeyaan adiga maadaama nin muslim aad tahay خطابك وحاكو كوجان قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله علماء الله مرراعي رسولك إلهي بالراعي مركا وحا واجب نوعا إن أنك وحبرنه إلى أن كأغانا رسولك إنك جدكي سراعة إنك خلافا إنك لأغانه إلى هرت وحبرنا اللو باهنية مدك لو حانكو الشيء وانهورنا جوابي على حق علامات بدن وليه من دنكاله oo zacaamo iyo madaxnimo raadsanay ama lacag iyo raashin raadsanay inin daaci ah oo aan waxba ka rabin habeen iyo maalin inuu xaqaas sheego u soo jeedo wax dan uu kaaleeyahay aanan lahayn waxa dareemi kartaa labadaas qofood qofkan waxa ku qasbay inuu been ku sheego asigu ku cadaab tago maxay tahay marka waxa weeyaan taas inay fiirisid mid kalena waa ka soo jawaabay oo de waa arin hore ka bilaabay dadka qaar waxay dhaheen su'aashaada ma xir ku daro annagu rasuulka ma arkin culimadana aragnay cilmina taqaan rasuulkina ayaga nooga sheekay ayaga waxayna dhahaan biska qaadanayna sax waa hadii ayaga culimada ay meel ku ijmaacsan yihiin sax waa laakiin hadii iskhilaafaan waxaad ka mid tahay qaybta lagula hadlay hadii ummadii iskhilaafta xaqa loo noqdo marka qof xaq u laaban kara inay tahay baa la doonayaa oo adiga cilmiga aad baratid oo adiga xaqaada gumaysiga aad ka baxay xaqiiqada jira waxa weeyaan cid kasta waxay dadka taqaan inuu ku gumaysatay rabtaa marka nin xor ama noqon kartid ilaa diinta ilaahay aad wax ka baratid nusuusti aad adiga la dhaqantid taas aan ku wada dadaalna caruurteena anaga oo dhan gabigeenba jazakallahu khayran wuxuu ahaa doctor Umar Iman oo xalqadii afraad ee barnaamijkan hadihi sabiili oo maanta qayb kamidna su'aalo ay lahayd noo soo jeedinayay waxaan leenahay ilaahay khayr ha ka siiyo annagana kuwa waxay maqleen ku xamal fal Allah naga dhigo waxaan naga xasuusinay barnaamijkan qofkii dhageysta wuxuu fursad u yeelan karaa usbuuc walba inuu su'aalo ka diyaarsado su'aalihiisana waxaan fursad u siinaynaa insha Allah markii xalaqaad muddo socotaba in su'aalahaas aan tixgelino waxayna soo dhigan karaan sida maktabada al-ihsan ama maraakista dacwada sida Ibn Baz oo kale ama masaajidka al-Suufi imaanada u dhiibaan iyo wixii lamid ah waxaan insha Allah ta'ala ku soo dhaweynaa gacmo furan iyo barnaamijka qofka la socdo waliba fursad fiican oo u heli karo su'aalo qalanta inuu weydiiyo